waxaa jira dhacdooyin aan weligood ka bixin maskaxdaada markasta oo aan dib u xasuusto dhacdadan wali waxaan isweydiiyaa hal su'aal maxaa dhici lahaa haddii aanan gaari u istaajin ninkaas waxaan ku jiray safar baabuur oo aan kala joogsi lahayn muddo 12 saacadood ah daal badan ayaa i hayay waxaana marayay waddo mugdi ah oo aan wax kale arki karin marka laga reebo inta nalalka baabuurkayga iftiimiyaan intii aan sii socday ayaan si lama filaan ah u arkay nin taagan waddada dhinaceeda isagoo dalbanaya in la qaado meeshaas waxaa ahayd meel codlo ah magaalada ugu dhowna waxay u jirtay in ka badan 20 mayl markii hore waxaan ka baqay inaan qaado laakiin ugu dambeyntii waxaa gashay bini'aadnimo gaariga ayaan u istaajiyay anigoo kasii fogaan rabaa ninkii ayaa u soo cararay dhinacayga markii uu gudaha u soo galay waxaan dareemay ur xooggan oo ka soo bixaysay dharkiisa wasaqaysan wuxuu xabadka ku hayay boorso yar oo aan si caadi ahayn ugu dhegnaa wuxuu iga codsaday inaan geeyo kaalinta shidaalka ee ugu dhow intii aan jidka ku jirnay waxaan dareemay inuusan caadi ahayn mar kasta wuxuu eegayay muraayadda bannaanka isagoo mararka qaar ganuunacaya akhrinayana erayo aan fahmi waayey waxaa ka muuqatay cabsi uu isku dayay inuu qariyo waxyar kadib ayaan muraayada dambe ka arkay baabuur si xawaaro leh noogu soo dhowaanaya waxa cabsida leh ayaa ahaa muddo dheer ayaan waddada keligayga ku socday sidaa darteed ilama noqon wax caadi ah baabuurkaas wuxuu bilaabay inuu nala simnaado mar kastoo aan xawaaraha kordhiyana isna uu kordhinayay markii aan ninkii wax ka weydiiyey sababta noloda u socdo wuxuu ii sheegay in dad halis ahi ay raasanayaan isaga islamarkaana aysan oggolaan doonin inuu baxsado wuxuu sheegay in boorsada uu sito ay ku jiraan caddeemo burburin kara dad awood badan hadalkaas waxa uu iga sii dhigay qof walacsan waxaan bilaabay inaan gaariga ku wado xawaaro sare laakiin gaariga naga dambeeyey wuuna sii daba socday xitaa dhowr jeer ayuu si ula kacaa noo jiray isagoo isku dayaya inuu waddada naga saaro markii aan ugu dambeyn gaarnay kaalinta shidaalka waxaan dareemay xoogaa rajo ah waxaan si degdeg ah ugu leexday goobta shidaalka markii gaariga sidaas u istaagay ninkii gaariga la saarnaa ayaa si degdeg ah u degay waxa uuna ka orday oo galay kaalinta shidaalka isagoona boorsadiisii sista isla markiiba baabuurkii la daba socday ayaa isna yimid waxaana ka soo degay 2 nin oo wejiyadooda ay ka muuqatay xanaaq daran mid ayaa bannaanka istaagay halka kii kalena gudaha uu galay kaalintii shidaalka waxaan ka daawanayay bannaanka anigoo aad u naxsan ninkii aan soo qaaday waxa uu kala furay boorsadiisii waxa uuna miiskii ku daadiyey waraaqadii boorsada ku jiray waxaa boorsadii ka soo baxay waraaqado iyo sawirro ka caddeemo muhiim ah ninkii gudaha u galay kaalinta shidaalka ayaa la soo baxay baskoolad u qarsanayd wax walba waxay ku dhaceen ilbiriqsi gudahood hal xabad ayaa dhacday ninkii aan soo qaadayna waxa uu ku dhacay dhulka dhiig badan ayaa ka soo daatay ninkii halka raggii kalena ay si degan u urursadeen dhammaan waraaqadihii iyo boorsadii kadibna ay isaga baxeen goobta sidii inaysan waxba dhicin markii ay tageen ayaan gudaha u galay kaalinta shidaalka qofkii joogay kaalinta shidaalka wuxuu ahaa qof gariiraya oo cabsi darteed hadli karin halkii uu iga codsan lahaa inaan booliiska waco wuxuu igu amray inaan halkaas ka baxo ka hor inta aysan raggaasi soo laaban cabsida wejigiisa ka muuqatay waxay ii sheegaysay in dadkaasi aysan ahayn dambiilayaal iska caadi ah anigoo argagaxsan ayaan gaarigayga dib u fuulay waxaana ka dhaqaaqay goobtii anigoo mar kasta ka baqaya in baabuurkii madooba oo ay raggaasi wateen oo mar kale ka soo muuqdo muraayadda dambe markii aan gaaray subaxdii magaaladii aan u socday waxaan wacay booliiska waxaan ugu warramay wax kasta oo aan arkay waxay ii sheegay in dhacdada la baarayo hadda islamarkaana ay u badan tahay inay la xiriirto koox dambiiliyaal ah oo aad u khatar badan inkastoo aan dhacdadaas ka badbaaday haddana habeenkaas weligiis maskaxdayda kama bixin waxaan garwaaqsaday in mararka qaar hal go'aan oo aad qaadato naxariis darteed oo si lama filaan ah kugu furi karo albaab aad ka gasho sheeko cabsi badan oo aadan weligaa iloobi doonin